dawladda Ethiopia iyo laamaha sirdoonka sidoo kale barnaamijkan bal waxaanu ku eegi doonaa iyadoo in badan laga hadlay dareenada kala duwan la cabiray waxaanu jecelahay inaanu dhinacyo badan ama angala badan aanu ka fiirino oo ay kamid ka yihiin bal xaaladda hadda taagan iyo go'aanka ama mowqifka dawladda federaalka Soomaaliya ay ka taagan tahay dhiibista sida la sheegay ninkaas odayga loo gacan galiyay Ethiopia waxaanu eegi doonaa sidoo kale saameynta ay arrinkaasi ay ku yeelan karto wadamada dariska oo dabcan Ethiopia ay kow ka tahay sidoo kale wax ilaa iyo hadda ay bulshooyinka Soomaaliyeed sidoo kale guud ahaan meel ay joogan ay iska weydiinayaan mowqifka dhinaca kale marka laga eego ku aadan saameynta jabhadda oo NLF iyo wax ay dawladda federaalka Soomaaliya guud ahaan ay ka aaminsan tahay ma urur bay u aaminsan tahay ma urur dagaal oo dib xoreen u aaminsan tahay ma urur argagixisay u aaminsan tahay iyo guud ahaanba ilaa iyo hadda iyadoo aanan wax wara laga hayn ayaanu jecelahay guud ahaanba barnaamijkan inaanu ku falanqeyno sidoo kale arinta aan taa ka fogeyn dabcan bulshadu ay carabka ku hayso waxa kamid ah in ay arintan ay ka dambeysay ama raad ay ku lahayd kadib safaradii faraha badnaa ee madaxweyne Farmaajo uu ku kala baxayay wadamada dariska sida Masar oo la ognahay in Ethiopia laftigeedu aanay heshiis ka raali aanay ka ahayn iyo socdaalkaasi guud ahaanba madaxweynuhu uu ku mareeyay wadamada qaarkood وهاجاك آدي أيام مركل إذا كم هاد علنية إن دان وصل نقطة مدرسة إجلا قيب كلا يسا برنامج كان on وجوه رئيسنا ده كم يدك وحافظية كورنيل أحمد ورسامة حاشي وكم يدها كورنيلات إذا مضى إركا إذا مضى دفاع هراء صوماليا ويسوق برنامج كان إجلا قيب كلا أن آدي أدنى وكم هاد علنية sidoo kale waxa barnaamijka ila faaqidi doona aqoon-yahan Xasan Cabdi Xayle oo inta badan isaguna ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo guud ahaanba Soomaaliya inta badanna kamid ah ragga aqoon-yahaninta laga wareysto dhacdooyinka u dambeeya haday noqoto xagga warbaahinta caalamka aad iyo aad ayaan idinka mahad celinaya ka soo qaybgalka barnaamijkan gaarka ah ee ku faaqidayno guud ahaanba arrimaha xasaasiga iyo dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka taagan dalka Soomaaliya markale soo dhawaada وهاك waxaan jecelahay soo dhaweynta ka bacdi waxaan ka wada warqabnaa in waxaan ku tilmaami karno dhul gariir oo ka dhacay maalmihii u dambeeyay dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho bal aan dhanka mid ka bilaabo adigoo noo soo koobaya dhacdooyinkii u dambeeyay aqoon-yahan Xasan Xayle waxaan jecelahay inaad barnaamijka nala wadaagto soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamantiin kalsan iyo adiga Faysal ah iyo saaxiibkay Colonel Ahmed Warsame run ahaantii arrintan ninka muwaadinka Soomaaliyeed ah kana mid ah ciidamadii Soomaaliya ahaan in uu dhaqdhaqaaqa gobolka Soomaaliya Soomaali galbeed laakiin ka tirsan jabhadii ONLF run ahaantii waa Soomaaliya kaliya maanta isku maayado bariha saacadaha ugu dambeeyay caalamka waxba laga qorqoriyaa run ahaantii waayo saad sheegtay dhul gariir ama duufaan waxay ka ciiday xogaa markano xiisay ka ciiday run ahaantii Soomaalida dadweynuhu xaqay u leeyihiin markay fiiriyaan qof Soomaali ah oo taariikhdaas leh ama halgankaas ku jira ama kamid ah ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya dadkii u dagaalamay mesela ciidanka iyo difaaca dhulka Soomaaliya kamid aha in ay noqoto in caasimadii laga afduubo oo loo gacan galiyo si aan raali laga ahayn oo aan muddo xitaa marka qaarkood dawladda inaysan waxay isku wada waafaqsaneed ahayn saraakiil go'an oo Soomaali ah inay inta xoog kula baxaan ka keenan goboladii mesela galmudug xoog uga keenaan xamarna xoog uga dhoofiyaan oo sida mesela barjada lagu arkay ودباتي لهذا إثيوبيا مثلا قعنت اللوجلي ولقى نحي كرو لديدي كرو لإنكيري كرو جارهان وقت هذا الوجر أو مثلا سوماليا أي دريميسو إن مدح بناني قطر كجرت أما الدولة هذا درس كهذا أما جودهان حين تاب كسوماليا كجرتو مثلا حتى بدوين تندي لنع مثلا لنع سوماليا بدوين تندي ما كان لا يهي حوجا فرجلين بدنا وحال دريمي يعني نوع إيمان يحتاجوا لديه صاحب كان إهن أما وراها عن إهن أو وضمن الخليج كأخرمه عن سومالي مثلا أي دبات بدن معناها كتاي حرب أد قطر وحال وجرا مثلا مركا تن ما إهن مثل السوري مثلا نقف سومالي أو wax sharci oo ka oolin aan jirin
in caasimadii inta laga qaado xataa dembi gaar aan lagu cayimin in laga bixiyo masalan aadi waa dhibaato badneed marka xiisuhu meel cidla ma aha way aad baad mahadsan tahay aqoon-yahan xasan cabdi xayle way aan markaa fursaddan siiyo cornel axmed warsame xaashi waxaynu ka warqabnaa tan iyo markii la doortay dowladdan cusub ee madaxweyne farmaajo 8 February dadku runtii aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen kalsoonidii guud ahaanba waa ay siiyeen waynu ka wada warqabnay baraha bulshada iyo muuqaalada la iska arko sidii yacni ay dadweynaha Soomaaliyeed meel kasoo joogaanba ay ugu riyaaqeen marka arrintani hadda maalmahan taagan waxay dharbaaxo iyo wajigabax ku tahay dowladda uu madaxweyne farmaajo uu hormood ka yahay ma la oran karaa soo dhawo marka بسم الله الرحمن الرحيم وادي سلام يا ورطة كارسن تي في وحان كلا سلام يا حسن حيري يو أديو فيصل يو رنا يرضى نقدو بيسا هاي برنامج كان روح بدن كنا عندي وجود بنيسا انت بعد جيت وحويا ورطة وحنا وجود وبالعادة واحد حساب طبعا واحد أصب ومركع كنا قفك وحنا واحد صوت شديرة oo la aqoon jiray oo la arki jiray Soomaalida waxa ka argagixinaya oo maanta argagax ku ah dawladda Soomaaliya oo Soomaaliya dhan matalisay shalayna lagu doortay Ethiopia nacay run ahaantii iyadoo la og yahay faragelin badan inay dalka ka jirtay ajnabi badan oo dalka ku dhex jiro ujeedadii loo doortay ninkan oo run ahaantii aad iyo aad dadka ugu hambalyeeyeen waxay ahayd inuu necab yahay dadka ajnabiga ah oo faraha kula jira dalka Soomaaliya sida dawladaha dariska ugu badnaadeen maanta in la dhiibo nin shalay u soo halgamay dalka Soomaaliya sarkaal ciidan noqday ku dhashay magaalada Muqdisho Soomaaliya oo ashaki ku jiray Soomaalinimadiisa iyo dadnimada uu ku leeyahay dalka dhexdiisa iyo hogaaminta kuwii asaga baaqiga ka ahaa asaga ka harayna ay curyaamin yihiin oo magaalada Muqdisho fadhiyaan asaguna u soo dhaawacmay dagaalkii 77 ku soo dhaawacmay waxa kale oo la yaaba shalay markii uu soo dhaawacmayay wuxuu u dagaalamayay xornimada Soomaaliya ay u dagaalamayay meeshii shalay loo diray oo u dagaalamayo ku soo dhaawacmay ayuu maanta ka mid ahaa galay asagii oo wali dagaalkii ku jira shalay u dhaawacmay dawladda Soomaaliya u dirtay in maanta la yiraahdo waa nin argagixisa oo loo dhiibo oo muxuu ahaayay dawladdii uu shalay loo diray oo la diray horta waa wax aad iyo aad caqliga uga fog dawladda Soomaaliyana kulleyba waxa ay la hadli weyday qabtaa dhibaatada ay maanta geysatay ama dalka u geysatay waa wax aan horena loo arag aan u maleynayna dib dambe inay u dhici doonto talo kaleeto marka waxaan oran karnaa waa dhulkariir way waxaana ku tilmaami karaa oo ku celin karaa inay tahay muxuu ahaayeen khiyaano qaran inay dawladdu gashay way waan iman doonaa qodobka ku saabsan awoodda baarlamaanku ay isticmaali karaan iyo maadaama ay baarlamaanku yihiin codkii shacabka iyo kalsoonida shacabka ay ku fadhiyaan waxay macnaha sharciyan hay xaqa ugu leeyihiin inay ka yeelaan ficilkan oo kale laakiin waxaynu ka warqabnaa xayle ilaa iyo hadda dawladda federaalka Soomaaliya marka laga reebo habeen dhexdii ahayd oo shir jaraa'id ay wada jir u qabanayeen mas'uuliyiinta ugu sarreeya dawladda iyo madaxda NISA in ay kaga dhawaajiyeen in arrinkani uu yahay arrin xasaasi ah oo aanay guud ahaanba ka hadli karin ayna la sugayaan waqtigeega laakiin waxaynu ognahay in dhanka kale kacdoonada shacabku isa sii tarayaan oo arrinkaasi ay kaga ku diidan yihiin kuna naqdinayaan aamusnaanta faraha badan ilaa iyo hadda aanay dawladdu wax rasmi ka soo saarin maxaa loo fasiran karaa horta aamusnaanta su'aala saar aamusnaanta dawladda ilaa hadda ay aamusan tahay iyadoo zawbacadaas ama duufaantaas xooga badan ay socoto aad sidaad sheegtay masalan oo yiri masalan madaxa ammaanka oo yiri arrintan waa arrin xasaasi ah aamusnaantaas ma garan karno waa la ogaan doonaa sababtay oo aamusan tahay laakiin anigu waxaan kamid ahay dadka qaba dawladda ayadoo sida walaalkii sheegay ay tahay dawlad isu taagtay inay haybadii Soomaaliya oo dawladnimo ay wax ka bilowdo faragelinta hal jeer ma joojin karto waa la ogsoon yahay jid dheer ay qaadanay macnaha waqti dheer
na u baahan tahay tallaabooyin xigoo marxalada ana u baahan tahay waa dawladda waa loogu garaa dadka soomaalida waxaan dhihi lahaa waa inaad consideration siidaan hal beri ku imaamayda dawlad soomaaliya oo heybad badan leh heybadaan beri hore soo lutay dhibaato badanaa soo taray walaalkii wuxuu leeyahay xitaa dalka inay gacanta ay kula jiraan ajaanib fara badan oo nooc kasta leh ayaa ku jira istikbaaraad ha ku jira macnaha dadka sirdoonka iyo wardoonka ama waxjiheeye waa ka xumahay inaan idhahdo laakiin soomaali badan oo dawladaha dariska u ah shaqaale ayaa soomaaliya jooga ama meel kasta joogaan yaanan dhihin dawladda keliya yaanan dhihin laakiin hay-adaha dawladda iyo meelo badan ay joogaan runaantii marka soomaaliya gacanay ku jirtaa gacanay ugu jirtaa dawladaha dariska ah waana la ogyahay qof kastoo soomaaliya waa ogyahay maalin uga baxsan kartid haddii aad ku tala gashay inaad heybadii soomaaliya soo celido adoo madaxweynihii dalka ah adoo baraaminserka dalka ah adoo wasiirkii arrimaha dibadda kii difaaca dawladdii adigoo ah haddii aad u shaqaynaysaan in aad soo celidaan heybadii soomaaliya jilaafooyinka laydin dhigaa waa badan tahay godadka laydin daboolaya ku dhici doontaan way badan yihiin siyaasad kasta ayaa laydin isticmaalayaa si laydin kufiyo aniga dawladda sababahay la aamusan tahay waxay aragtay inay god ku dhacday dadweynihiisi loogu sheegana lama yaqaan oo la yidhaahdo war annaga arrintan way naga dhacday waxay nooga dhacday khibrad yari iyo in jidka aan marayna oo dhibaato badan yahay oo qodxo badan yahay oo sida la moodaya aysan ahayn waxaana la cayaaray shax badan lala cayaaray waa loo baahan yahay si geesnimo gelis ah in dawladda ay u hadasho in arrintan ay tahay fashal waxaan ka hadlayaa macnaha aad iyo way aad baad mahadsan tahay xayle axmed cornel axmed waxaan ognahay in dawladdu heshiisyo badan ay wadamada dariska la soo gashay saynu ka dhawaajinay masar ay la soo gashay ethiopia maxaabiis badan oo ay isweydaarsadeen ay la soo gashay oo ilaa 100 maxbuus oo sanooyinkii u dambeeyayba ku xidhnaa dalka ethiopia si sharaf leh loogu soo dejiyay cariga soomaaliya in sidoo kale wadamo badan oo ay hindiya iyo Seychelles ay kamid yihiin oo dad Soomaaliyeed ay ku dhibaataysan yihiin ay dawladdu ay dadaal xoogan ugu jirto inay muddooyinka soo socdana ay wadanka ku soo celiso marka ma la is oran karaa heshiisyada dawladdu ay galayso waxyaalo badan oo ka dawliyan ahaan aan shacabka loo soo bandhigi karin ayaa jiray oo ay labada dawladood ama Ethiopia iyo Soomaaliya ay ku wada hadleen in arrimaha amniga waxyaalo ku saabsan in ay isku gudbiyaan oo arrintana ay qayb ka tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay faysalow waxa weeye horta dawladdu waajibaadkeedii waxa aad ka hadlaysaa waajibaadkii loo doortay ayaa wuxuu ahaa ummadii Soomaaliyeed oo kala baaba'day oo kala muxuu kala tagtay sida isugu soo celin lahayd ayagaana shacabka u tumay oo yiri annaga isku soo celinayna maxaabiista aad leedahay waa la soo daayay waad dhagaysataan u malaynayaa horta waxay ahaayeen niman dhalinyaro ciidan inta Ethiopia dagaal la galay Ethiopia naga qabsatay oo xabsiyada ku xidhatay horta maaha waa dadkii shacabka ahaa ee ka yaacay wadanka oo nafta raadiyay oo iyagu ay naf ahaan ay u geysay inay u galaan markii wadanka ay ku baaba'ay waad garanaysaa wiil 27 sano inuu 23 sano u xidhnaa maalintii xamar aan ka baxay jaamacadda iyadoo iga hatay 8 bilood baan ka tegay biyo xamar dagaal ku qabtay ugu dhacay 5 habeen oo dhex ku sii jiray habeenkii 7aadna waxaan galay wiil magaalada la yiraahdo Dirdhabe waa la qabtay oo askar baa qabatay wayn dhammaadaan mustaqbalkayga waa ku baaba'ay wiil halka askari ma ahayn nin dhibaato geystay ma ahayn nin dulmi loo haystay oo dhalinyaro oo student iyo ahaa ummadda hadda lagu leeyahay waa la soo daayay waa ummad Soomaaliyeed oo la cadibay oo dhibaato loo geystay way kuma bedelan karno marka mid kale oo Soomaaliya oo yiraahdeen Ethiopia dib uu nuga hayaa anaga kuma bedeli karno laba nin oo Soomaaliya isku jiiji karayn karno waxa weeyaan ninkan nin ciidan u ahaa nin Soomaaliyeed u ahaa anaga dib nugu muusanay hadduu nin Ethiopiana oo Ethiopiana u yahay Ethiopia u dhashay oo dib ku haya Ethiopia labada dawladood waxyaalo badan ay ku xalli karaan baa jira qofka hadduu magangeliyo doon yahay oo magangeliyo doonayo wadamadan magangeliya lagu yimi waxa weeyaan maanta inay yiraahdaan meeshii naftiisa lagu dili lahaa qofkii baa lagu celinaya waxa weeyaan waa waxa suurtagal ahayn qofka asagoo dalkiisa dambi ka soo galay oo soo baabiyay ayaan lagu celin karin meeshii uu ka yimid ma ahan midaan nimankan niman westernka ka yimid way ma ahan niman ayagu Soomaaliya ilaa iyo waqtigii taagnaa oo Soomaaliya sidii qabto ugu dhacday joogay maaha waa niman magangeliyo siyaasadeed la wada siiyay barnaamijka iyo madaxweynuhu magangeliyo siyaasadeed baa waxa lagu siiyay wadamada tan muxuu ahaayay qarbigan baa lagu siiyay
dib bay ugu noqdeen markay tacliin ka heleen oo waxbarasho ka heleen oo wanaag ka heleen bay dib u noqdeen oo waddankooda ugu noqdeen maalintii kasoo cararayeen dalkoodana kumaysan noqon karin oo waxay ka baqayeen in lagu dhibaateeyo in nin raxmad dhibaatadii uu qofkaasi soo maray ama dhibaatadii uu soo maray in asagii qof uu geliyo waa wax aad iyo aad nolosha uga fog oo aad aan wax la qaadan kara ahayn marka uma oran karaan nin soomaaliya iyo nin soomaaliya ku bedelanaya waxa weeyaan dhibaatay geysteen waa og yihiin waxay la aaminsan yihiin bayna qabaan waxa weeyaan sharaftoodii waa ku dhacday dowladnimadoodana way ku dunsan tahay dhibaatan badan oo heshiisyada la soo galayana dee annaga wax dan noo haya awalba marka hore lama arago Ethiopia iyo meesha la yiraahdo Masar niilka la isku haya niilka marka la isku hayana weligeed waa dhici jirtay aad iyo aad waxaan jeclaa marka sidaynu ka warqabno dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ku saabsan Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax warbaahintu ay maanta oo kale ay ka faafinayso waxaa kamid ah in afhayeenka ONLF ninka lagu magacaabo Cabdiqaadir Sheekh Xuseen Hirmooge oo cadaani lagu magacaabo inuu sheegay isla maanta in ninkaasi ay Ethiopia ay gacanta ku hayso laanteeda sirdoonka magaalo dabcan sidoo ka dhawaajinay Addis Ababa ama u dhow ay ahayd in la wareysanayo muddo 2 sano aan halka lagu hayn doono ka bacdina isla xarumaha kale ee sirdoonka iyo goobo amnigooga aad loo adkeeyay lagu si hayn doono iyadoo oo arintu ay farakabax tahay oo ilaa iyo hadda dawladii Soomaaliya federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hormuudka uu ka ahaa ay ka aamusan tahay kacdoonka shacbigu iyo banaanbaxyadu ay sii socdaan maxay khatar keeni kartaa horta shaki ma laha hadii gacanta aad u galidii dal raadinay ninkaas in la soo gacan gasho niman dagaalyahan ah oo taariikhdu ay taqaana jirto oo wadamadii ay la dagaalamayeen gacanta loo galiyay وبدين لكن تاريخ أهم ذلك تركيا نقوله وحلا جري وحلا دري حزب اللي كي بي اللي ما مثلا است أفريقيا لا قبت إنك عبد الله أوجلان مثلا إلا هذا عنده كجرا لما دبته مشاكل لو مجلسوا إلى رجع مقصود إثيوبيا وطن أفريقيا وطن أفريقيا كانوا حقير ما لكن قف قوة حنوجا إن سي ما كانوا بني آدم ما هذو قعنت أو قالوا ذلك عادوا إن مثلا شديل سيد الرجال مثلا لما صنع مع الرمانتي لكن عبد الله أوجلان هلكو كحرين هو مال رحبنا مركو أردوغان يمد وحو كصحيحي إن dhibaatooyinkii Kurdistan dadka Kurdiska oo sida ay Turkiga qabto Turkiga jooga iyo ururka jabhadooda in waxyaabaha heshiis oo dan u ah in lagu wada heshiiyo saasa lagu heshiiyo heshiisu waa ku yaraatay in dadka Kurdiska oo Turkiga ku dhagan dhaqankooda loo soo celiyo luqadooda loo soo celiyo dhulka Turkiga hal hado bay Turkiga dhulka ay joogaan Anatolia annaga iskale أيقونوا وادد صاقل وتاريخ وحياة جموسن تاعي لكن سيدا أي تركيا رتوي مرسطي عبد الله أوجلان أو حسد بدني يكودكتي ويا نص نقول مركا إثيوبيا أيضا سيدا يلدون تا سيابا أيضا أي ربطه إنه نن كان أحد له إنه دون شك ملها ميديا قارة سيدا قري دولة الصومالية أمسنانتيدا وحبا كوبيج مدونين كما كو حصلوا أو لقيا إنه استيراد هو ورك السرير حمريا إن ربيتان كيسو كلا أو كوبحي أو لرو إن هادو مكسو هذا أما تاس وحوا هديت الربوا مسرحية الرقيصة نين كان سيدا رنتا أنا ومقابو حسن أهان كيس كان دولة إن لو يعني لو سيجيل مع لو جيلو oo dadka qaar kood haday jecel yihiin in ay maxalliyaas bedel siyaasadeed oo kii ka duwan dhaqso in la gaaro sida mucaaradka badankooda oo hadda oo dubaanka u tumayo aniga ma qabo laakiin waxa loo baahan yahay Soomaalida oo dhan aniga waa sida fikirkayga u yahay inay arintan content gareedo inay arintan sida ay tahay iyo xaqiiqada ay leedahay iyo dawladda waxyaabaha ka qaldamay oo looga baahan yahay inay saxdo in sida looga baahan yahay dawladda inay si geesinimo ah ay arintan u waajahdo أنا دوت أصلا كوتر لها جسني واجه يعني سفي عن وحلا قرادات كان أنا وسان وأركو إنه يهجلا فوق لدين دقي هداد جرنين يهداد جرنين صار من كان وراك يصاد سلطة هذين ذكي محابيسها أو توبي لقصو داي أو برا منستر أو وصل شفاعي أو ذاك الوسع عليه وسؤالي لها مدحوينها يو برا منستر كيو وزير هذا كلو أمني جذها وأما يتهي فرس كي ترويا وحلي ودقال كده وهو تاريخه الجريج الأحمر تركيا واجي هو تاريخه يهرب
faraskaas oo ladii soo dhex galay amuu yahay intaan oo qofood qaata way ان سؤال laakiin noogu bedela amay ogaayeen noogu bedela dadka canaasirta ah oo jooga oo Ethiopia amaankeeda khatar ku ah waayo aniga onlef iyo jabhadan Oroma waxyar aad waanu iman doonaa in ONF iyo Oromada iyo waxaan jecel Axmed inaan su'aasha taa aan ka fogeen dabcan aan kun siiyo fursad ah raba Xasan Xayre meel buu ka dhawaajiyay Ocalan ka dhawaajiyay BKK Ocalan iyo ninkaan Sema isku mana dhawaa ninkaan Ethiopian ma laakiin Ocalan wuxuu ahaa Kurdiya nin wuxuu ahaa wadanka wax ku leh laakiin ninka kane ma aha ninkan waa Soomaali weey nin Ethiopian hadduu yahay Ethiopia dhibaato ku hayo sida anagu aan uga baahanahay ninkii anaga dhib ugu qabto Soomaaliya inay Ethiopia noo soo celiso waa wax wanaagsanaan lahaa ninkan horta waxaan isku haysanaa sideedan Ethiopia ba mase waa Soomaali hadduu ninka Ethiopian yahay nin Ethiopian uu yahay waa okay in wixii Ethiopia dhib ku hayo Ethiopian la geeyo laakiin ninkan waa Soomaali waa ciidankii Soomaaliya waa Soomaali waa dadka yaga okay way an Xasan ado gar halay waxaan hal point ma kana waaqi oo jiraan marka la xiran waxaan u jeeday dadka interrogareynaya oo su'aalaha weydiinayo askarta ah waxay leeyihiin hadaf Usmaan waxa uu wadnaa muujintahay ay rabaan inay ka dhameystaan oo in la marsiyo la rabo oo dadweynaha iyo dadka Kurdistaanka ah ila dirbi jiray inuu sheego la rabo way imaan kartaan leeyahay in dawladda Itoobiya wax interrogationka uu sameeyay ninkan inuu yahay in war ayadu ay rabto lagana yaabo dawladda Soomaaliya inay rabto in laga soo saaro macnaheedu Usmaan waxa uu wadnaa way أحمد waxaan ognahay in dawladdan hadda uun ay cagaha ay isku sii taagaysay oo maalmo ka dambeysay ay sii adkeysanaysay marka laga yimaado dharbaaxadan maalmahan u dambeysay ku dhacday xagga qalbi dhagax ku saabsan ama Cabdikariin Sheekh Muuse waxaan sidoo kale ka warqabnaa baaqiyo ka soo baxaya qaybaha kale bulshada haday noqon lahayd odayaasha dhaqanka haday noqon lahayd qaar kamid ah siyaasiyiinta oo iyagu arrintan dhinac kale ka waajahayo le waxaa jira rag badan oo marka horeba dawladda aad iyo aad uga soo horjeeday oo rabay inay fashiliyaan arrintanna uga faa'iideysanaya khalkhal gelin kara in ay dawladda waxyeello weyn ay gaarsiiyaan arrintaas meena ku muuqan adiga aad iyo aad baa mahadsantahay horta waxa weeyaan meeshan laba arrimood baa taala dawladdu dambi ma gasho iyo waa la duminayaa waa kala laba horta qofka waxaa rabaa markaad ka hadlayso dawladdii oo leedahay mucaarad baa qalqalinaya mucaarad baa hebel yeelaya inaad horta dawladda dambigeeda sheegto inaad mucaarad ku cararta maaha dawladdan shalay mucaaradku kugu jiray wax haystaan lama arag dawladdan waxaa sabab looga dhigayaa dambiga iyadoo ay gashay odayaashu waxay ka hadleen dhibkii dawladdu geysatay kamaysan hadlin dawladda yaa la duwan bay la soo istaageen meesha marka dawladda yaa la duwan ma imaanayso dawladda waxaa loo doortay inay wax dhisto hadday iyadoo wax dhamaytayso oo dhibaato geysato waa la duminayaa marka inay yidhaahdaanba keliya ay kusoo xidhaan hadalkoodii hadda waxa weeyaan Xasan Xayre khayr Allah siiyo wuxuu sheegay in dawladdu gaf ka dhacay in dhibaato ay gashay laakiin dawladdii la yiraahdo bal sidii aysan dhibaato kale aysan u sii dhicin bal waxa la sameeyo odayaashu ma aysan oran meesha ay ka hadleen ma yaqaan odayaashu totally minta waxay ka hadleen dawladda ayaan ka dumiyaan ka jilafay dawladdan waxa weeyaan dambi bay gashay midda koow maanta uma aha waxa weeyaan dadkii lagu laayay shabeellada hoose waa loo gudbaanintii dawlad Facebook iyo inta wada qaateen nimanka ay yiraahdeen shabaab baan lay odayaal yaryar masaakiin oo meel fadhiya ka bacdigeed waxaad garanaysaa hadda nin hadda ka hor la ruqsiiyay oo ahaa hanti dhawr la yiri nin wuxuu dilay wardiisa wasiir buu dilay waxa lagu ruqsiiyay oo kaliya ay ahayd kelmadii lagu ruqsiiyay lama socon gaariga warkiiba ka hor dhacay baa dhan shaqadiisa lagu kuway hadda waxa weeyaan wasiiradii ka hor dhacay shaqada oo afarta wasiiraha wax laga soo qaaday oo dawladdu ay ka soo qaaday lama arko dad shacabay laayeen waxay qoreen marka way Axmed adoo gar haalay maxaa ku jaban waxa weeyaan dawladdu dambi bay gashay waxay isku badbaadin lahayd soo taarta miiska haddii soo saari weydo miiska waxay isku badbaadin lahayd oo ka hadli weydo dawladdu iskoor way ka tagtaa way qaabkay u tagi lahayd iyo sharciyan qaabkii loo mar lahaa waan u gali doonaa waxaan jecelahay in wax qabadka dawladda hadda taagan qaraxyada tusaale ahaan bay noogu filan oo bishiiba ugu yaraan 5-6 qarax baa dhici jiray oo ugu yaraan 20 ama 30 qof oo rayidka waxba galabsan ay ku leedmijeen maanta waxaanu ka warqabnaa in بريه ودنبيه قرحة وآد ويراهن هرمار كله كتر لابسة تقولون لما شيء كرو مركا حيله مركا نكون بعد أحمد ويسوق فكر كلا قبا
dawladda in barasharka iyo culayska hadda taagan laga khafiifiyo miyaanay kula muuqan anta war ra'yiga sida ah maadaama dawladdu ayada ay tahay dawlad waxa lagu dagaalamayo iyo sirqaha iyo shirqoolada loo dhigayo ay tahay aysan taabagelin haddii aniga Soomaaliya aan dawladii sida laga rabahay waayo macnaha dalalka aan isleenahay Soomaaliya jilaafay ku wadaan dawlad inay dunti rabaan annaga iyo wadamadii dariska ahay waxaan isku waafaqaynaa dawlad inaan dunto taas ma aha maartay logic ma aha waayo sida rabiga ay si sahal ku gaarin macnaha hadda barnaamijku wuxuu dhexyeelaa shacbiga Soomaaliya dawladdiisa Itoobiya daawasho ku jirta waa looga dhaxbahay waana ognahay sidaan wax walba ognahay inay rabto dawladdan iyo madaxweynaha hadda jira iyo xataa baraha ministarkiisa iyo sida cabinetka dhan inay meesha ka baxaan waxaan ogsoonahay kale dawladdan iyo mas'uuliyintooda inaysan kulligood antaasan leeyahay hal leen kuma jiraan hal khadma taagna qaarkood waa tuumayaa inay shirqoolkan wax ka ogyihiin anoo xasan ah oo siyaasada Soomaaliya ilaa muddo wax ka soo ogaa Ethiopia waa loo shaqeeyaa Kenya waa loo shaqeeyaa ana Djibouti ku darin baa laakiin hada dawladda iska leeyahay iska dheh wadamadan khaliijka ah oo aad moodo in ay nagu soo bilaabeen waagii isticmaalka Soomaaliya intaas iman koor qabaa'ilan ahayn qabiil walba meedo France meel siiyay khaliijka tajarra waqooyi galbeed qolaa u saxiixday iyo ugaasiyo iyo odayaal dhaqameed iyo garaadiya u saxiixay gobolladan waqooyi bare waqooyi bare talyaanigu muddo dambe waa loo saxiixay koonfur banaadir maashi gobolka la jiray sayid barqash oo talyaaniga inuu sii raba 25 sano u saxiixay kadibna isticmaaran aragnay maanta waxaan ku soo galayaa dawladda raadinaya waxa loo yaqaan carabi waxa loo yiraahdaa ama ingiriiska labadaba waxay raadin influence area of influence dhul ayaga ay awoodooda dawladeed ay ku fusho kadibna ay ayagu waxay rabaan ay dawladaha ka dambeeya dekadihii waxaan bixinay berbera tii waxaan bixinay boosaaso tan kasmaayaan bixin doonaa baraawi iyo markaan bixin doonaa macnaha Soomaaliya way soconaysaa marka jaanti farbadan ku jirtaa aniga waxaan qabaa Soomaalida aqliyaysato dalankaas noo dhigay hal madaxweyne iyo hal shakhsi looma dhigin anagoo dhan noo dhigay laakiin waxa la rabaa Maxamed waxaan kula talin lahaa farmaajo asaad dalkii ka mas'uul ninka la yiraahdo baraha ministerka khayre asaad dawladda ra'iisul xukuuma ah ma tuunsani labadooda boqolkiiba boqol kiiska inay ogyihiin laakiin hadda waa ogyihiin صح macnaha waa aniga dadka oo durbaanka u tumaana kuma jiro laakiin waxaan fiirinaa waxa ay productigooda soo saaraan aan ku qiimeynaa ilaan siyaasadda waxa waa production kay soo saaraan ku qiimeynaya waxyaalo badan oo fiicnaana way jidka way hayaan laakiin waxaan ogahay dabina fara badan oo ku yaalaan waan kula tali lahaa safka dawladda iyo amniga iyo xiriirada dawladaha dariska aan leenahay dib ugu noqba shanbeenta halkaas ka bilaabaysan way ان احمد كورنيل احمد adaga raallay waxaan jeclahay in sida ay noqdo warqabnaba dabcan in madaxda in ONLF iyo in muuqaalada baynu arkaynaa ninkii hadda aynu ka waraha hadalkiisa haynay Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax wuxuu gacanta ku jiraa sirdoonka Ethiopia meel ku joogo garan mayno waa uu joogaa sa la xaqiijiyay dawladii Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeedna hadda way soo kala horjeesteen oo aynu arkaynaa barnaamijyadii u dambeeyay maanta ka socda gobolada qaarkood dalka Soomaaliya biyaan arinta la oran karo markaa wadamada darisku waa double win wax la yiraahdo ay ku jiraan oo waa guul laba jeerba waa ay guuleysteen laba jeer waa guuleysteen sida hadda uu sheegayo maaha siyaasiga ama aqoonyahanka Xasan waxa kun horta guul meel horta dabin inuu jiro la isku maahan laakiin annagu waxaan nahay dad maantay la siri karo horta ma noqonayo nimanka meesha jooga aqoon baa la biday way aragnimo la biday waxa la biday dhalinyarnimo inay yihiin niman westereenka oo wadamadan dabinadoodii iyo hadaladoodii waxyaalo soo qaatay dawlad markay dumayso ama dhibaato ay ku dhacayso horta kiiska beel bal saar dawladaha waa soo wada mandhaa ceebti watarkay dawladaha adduunka dhan way soo martaa laakiin meel bay ku kiisaan hadday doonayaan kulligood inay isla dumaan hadda way isla dumayaan haddaysan doonayn inay isla dumaan kiisku meel buu ka soo fufay meeshii ha saaray hadday meeshii saaraan waxa weeyaan dawladdu waa badbaadaysa
hadday isla doonayaan koox isla dumay baan waa isla dumaynaan kiisku marna kama dhamaanayo waa isla dumaya waxaad ku saartay ninka la yidhaahdo jamhaddan ole la fiira Ethiopia waxay sheegtay markii loo dhiibay ninkaan inay sheegtay argagixiso kelmadda la yidhaahdo argagixiso kuma jirto ole way en aad iyo aad baad mahadsan waan imaan doonaa mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka aaminsan tahay ururka ONLF iyo guud ahaanba waxa daawadayaal badan baasan fariinta helay khadka telefoon ku jira oo barnaamijka laftigooda raba inay nagala qayb qaataan daawadaha horeeya adoo magaca ku bilaabaya waad la socotaa barnaamijka saan filayo TV-ga ma aaladaad naga socota iska gaabi barnaamijka ama mawduucana fadlan gudagal soo dhawo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته la socota barnaamijka Soomaa فيصل وانا socda barnaamijka wal soo dhaw adoo gudagalaya in codkaagana waxaan jeclaan lahaa wax yar inaad kor ama xaggaaga haday tahay ama xagga farsamada inaad kor noogu qaataan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيصل سفيان اوكي walaal toos baad ugu jirtaa mawduuca gudagal waa mahadsantahay Faysal adiga iyo Korneel Axmed iyo Xaylab waa islaamiya iyo dhalinyarada kaleba magacayga waxa la yiraahdaa Aadan Maxamuud Xuseen laga caleen waxaan kala soo hadlayaa London hada soo dhaw waa dhawahay barnaamijka markaan fiiriyo dawladdu waa simbirixatay meel xun ay ka dhacday laakiin fikradda Korneel Axmed oo saaxiibkeedan aqaano waxaan jeclaan lahaa inuu bedelo oo dawladihii cadawga nagu ahay ama khaliijka ahaato ama dariska ahaato tayna la doonayaan ku jirnaa marka dawladdu waa simbirixatay in garabka la qabto laga celiyo qaladkeedana la tuso wadankana la badbaadiyaan kula talaayo wassalaamu calaykum waraxmatullahi aad iyo aad baad mahadsan tahay mawduuc ama noqdo muhiim ayuu aad ka hadlay oo ah wixii dhacayba dhacay in dawladda la garab istaago ayaa muhiima aad buu mahadsan yahay waa horta waa war fiican hal la badbaasho wax xun maaha laakiin badbaadadu bilbil ku imaan kartaa horena waa u sheegeen waa sheegay badbaadadu waxa weeyaan dambigii uu dhacay dawladda ha joogto meesha ma imaanayso dawladdu kiiska beel ha saarto dawladdu kulligeed maaha waxa kiiska gal dawladdu waa in wasiir la waayaa waa in la waayaa muxuu ahaayay la waayaa taliye la waayaa waa in muxuu ahaayay sarkaal la waayaa dambigaan wixii galay ciqaabteeda waa in la helaa haddaan la helin ciqaabteeda dawladda ha joogto dambi kasta ha gasho meesha waa suurtagelis annagu ma rabna dawladdu inaga dunto ma rabna dawlad la-aan inaan dhacno laakiin ciqaab waa in la helaa haddaan ciqaab la helin dee dawladdu ma helayso kalsoonida dadka aad baad mahadsantahay daawada xiga ayaan fursadda siinaya halo asalaamu calaykum halo way hayla waxaan jecelahay markaynu u nimaadno ururka ONLF iyo mowqifka dawladda federaalka Soomaaliya waxaynu ka warqabnaa ururkani urur soo jireen inuu yahay muddo dheer ku jiray dagaalo kala soo jeeday dawladda Ethiopia ka soo jeeday waynu ka warqabnaa dawladdii dhexe ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre Allah naxariistay iyo mowqifka ay ka taagneed waynu ogeyn laakiin dagaaladu markii ay dhaceen waa kii maamulo iyo isbedelo ay yimaadeen ilaa dawladdii Cabdullaahi Yuusuf soo bilo ilaa iyo tan maanta hadda joogta mowqifka dawladda federaalka Soomaaliya inkastoo waqtigeedu uu kooban yahay 6 bilood ama 7 bilood hadda madaxweynuhu hadda uu joogo farmaajo iyo dawladdiisa federaalka Soomaaliya mowqifkoodu maxaad qiyaasi kartaa marka la eego ONLF horta space uma hayn dawladda Soomaaliya macna masaafo ay hadda kula dhaqanto ONLF ma aysan hayn laakiin cadow markaan leenahay dawladda Soomaaliya taaba gashay ka baqaya ONLF ku xisaabtamaya ONLF waxay isleeyihiin haddii Soomaaliya ay dawlad fiican ka dhalato waa Soomaaliya waa istaageer وتاس وحواه وسيمبل لوجيك معروفة لكن دولتي كمل جارك هذا كصومر ودان لبنا الدولة رجلي تي حسن شيخ هذا جوكت محمد عبد الله فرماج ومدح ذكيه لبنا بيس حيان أما فراق هين هين كران أوريلف صومالي ميدان لأيهن وهذا الذي وقوي كوف معناه وقوي كوف أنا سمعه صومالي وهذا صومالي لحد ذهب إني سميان مثلا اسمه وقت أهين وحسن وقت أهين دي بهالشيسين توحي كمتها وحيابها الوصول عليه كرهيبة الصومالي أنا سأبت أقول له وحكمتها دي بهالشيسين سياسات مرة دي بهالشيسين بلش الله جالس بالله بس سياسة ده ربع معناها الصومالي أنت تقول مني هذا قال كوب لو عرش أنا لف تبرؤ ما يسنحين لكن أنا لف إثيوبيا وحي أقصنتها قفك صومالي جا مسكحدي قفك صومالي جا مسكحدي لكن ما تهدد عادي مقصنتها أو مرقاتي ده ما أنت تيسروها جاكتو أنا لف يحي أم كل جن أنا لف نحي أرتاس واحد إثيوبيا تاسي أقصنتها يكون حساب تمام وح لقى حماده أنا لف وحي الربع لون كريتيكاري
laakiin waa urur idaacadahan waan ka sheegay usii taagnaa usii dagaalamayay gobol kamid ah goboladii shanta ah oo soomaaliya ayagaa usoo dagaalamayay dadka soomaaliyeed horta waa inay maanta wixii ka dambeeya iyo ninkan hadda masalan cabdikariim sheekh muuse ah waa inuu noqdaa u-turn aliya macnaha taariikhdu meesha iska bedesho dadka soomaaliyeed waa inay la tacaadufaan la shaqeeyaan wax kastoo taageera ay u heli karaan meel kastoo joogaan waa inay oona maadaama ay inagana mathalaydo waa in masalan anigu waa fakarkayga macnaha tan labaad aan ku jiraa hore u sheegay waxaa noo soo baxay shabaaba halo salaamu calaykum calaykum salaam walaal waayey waad la socotaa barnaamijka soo maha aad iyo aad baan walaal ula socdaa baa tiri 7 habeen baan naaseexanime aad iyo aad walaal adu magacaa ku bilaabaya arrinta taagan umaadno hadda dabcan qaadaa dhigaynaa ayno waan dareensanahay magacaygu waa caasho walaal UK baan deganahay caasho soo dhow walaal aad baan idin wala salaamaya ninkii labadaa nin khiyaariinta ragga Soomaali waxaan mari labadaa ayaan banayn baaba ka soo hadhay aad iyo aad baan idin wala salaamaya iyo Carson oo isaguna sharaf qayb libaax la hawlahan ka qaata hada socda marka walaal waxaan ka rabaa inaan ka hadlo arrinta wiilkan waxa weeyaan midnimo Soomaaliyeed iyo Soomaalinimo un bay rabteen arrinta uu maaragtay nalagu dayo un bay ahayd insha Allah hadan khayr bay iska noqonaysaa laakiin midnimada iyo Soomaalinimada ayaa ka wanaagsan waxay nimankaas ama Ethiopia ama waxa Soomaaliyeed ay doonayaan annaguna dalka iyo dadkeenu leenahay ninkana waa nin Soomaaliyeed oo joogo caruurtiisa ay ku dhalato dad baa Soomaali miyuu yahay iyo kida ba shaqadaas hada suuqa socota wuxuu yahay ninkan waa nin Soomaaliyeed dalkiisa iyo dadkiisa Ethiopia nin gacanteeda galay ma soo noqonayo laakiin wixii xal lagu raadin kara ama nabad oo kale un baa dalka un baa inaga wareynaa muhiima aad iyo marka banaanbaxyaa socda caasha oo hadda lagu diidan yahay arrinkan arrimahaas oo sababi kara in dawladda waxyeello weyn ama dhaawac la soo gaarsiiyo marka adiga fikirka ku aadan in dawladda barashar iyo awood la saaro oo marka qaarkood ay dhici kartaba in ay dunto ama ay dhacdo arrinkan maxaa kaaga muuqda adiga ما مدخلات كسيدة كرفري بهلا سودا ولكن عالدون أو كلا حلا يراد سيابك كلا حلو ساعدا لكن دولة أما ملحينها إلا هذا ما دام اللي ورسوا إلا ظهر نعمها لكن إن على هذا يعني من كان إثيوبيا وضطو يعني من كان أي فؤو عند بديل في كوحن إن سيدو هذا براشر يعلس الله صار أو يدل كان كده يعني يدل كان وأنا أمسنا لكن إن دولة اللي ما أمسني أضمن ما ستورا أضمن كلام هلا أيه ولا أثني ولا سرامي إن أريد واحد نقول إن مركا كسابسن أو أنا أحمد waxaan rabaa hadalkii toban jeer baan ku celiyay dadku horta inay aad ma fahmaan dawladda horta anagu ma badbaadin karno ayuu dadka isu badbaadin hadalkii si fiican loo fahmaa fiican dawlad dambiga ma wada gelin oo laftan madaxweynaha iyo ninka ugu hooseeya dambigan ma gelin dad baa u shaqaynaya dadka u shaqaynaya oo dadka Soomaaliyeed raba inay dad kale ka iibsadaan dawladdu horta wayna banaanka soo dhigtaa dawladdu hadday tiraahdo aan abka saliim bay ka nahayo qofna aan loo qaban dawladdu ma joogayso aniga dawladda nin duwanaya ma laakiin waxaan ku sheegayaa ninka la yiraahdo Cabdikariim haddaan dad u dhiman ama dad loo xirin ama dad jeel u gelin waxa weeyaan dawladdu ma taagnaan way miyana u muuqan dhacdada kadib in degdeg fara badan iyo hubsiimo la'aan fara badan ay ku jiro shacabka Soomaaliyeed maadaama laftiga dawladduba inay isku maqan tahay ay aamusan tahay oo laga yaabo wax ay soo bandhigi doonto aan la ogeyn in wan hadda dawladda waxa ku filnayd ninka la yiraahdo Faisal dawladda waxa ku filnayd farastiba wixii dhawaaqaan markuu dhacay inay tahay baaritaan baan galeyna miyaad ku haysaa baaritaan baan galeyna wixii waxaan ka dambeeyaan qabanayna miyaad ku haysaa ninka la yiraahdo Cabdikariim wuxuu xaq u lahaa in la xiro la baaro xabsigana la dhigo Cabdikariim waa dareemi kartaa inaan sharci dawladeed u soo marin waa waxa aad dareemi kartaa waayo xalay baa la qabtay habeen hore la geeyay habeen saddexaad Ethiopia u inuu sharci soo marin waa waxa dareemi karto gudoomiyaha nisa Sambalo show arrinka markiiba wax laga weydiiyay wuxuu ka dhawaajiyay arrinkaasi xasaasi ah yahay waqtigeedana ay la kaashan doonaan lana wadaagi doonaan bulshada waxa ku jira ninka hadda waxa lagu yiri galmudug baa laga soo qabtay balu fiirsaya ciidamada galmudug baa qabtay lagu yiri ciidamada galmudug oo soo qabtay ninka la yiraahdo Cabdikariim horta ma jiraan taas rabaa ku baahanayo ciidamada nasa la yiraahdo ee u jooga mudug ama galmudug u jooga waxay joogaan soo ninka la yiraahdo nasa waxay joogaan Kismaayo joogaan waxay joogaan Gaalkacyo waxay joogaan Garow waa raggii waagi hore qola ay u shaqeeyeen qola soo tababarteen lama dawladda la shaqeeyeen bali nin ay ka amar qaataan galmudugna kama amar qaataan Puntland kama amar qaataan toos waxay uga amar qaataan dawladda Soomaaliya ninkan iyaga qabsaday haddii aysan galmudug ka hadli lahayn la isma weydiiyo maanta arrintu halkaan ma timaadeen wasiirkii ka hadlay oo yiri ninka laga qaadateen keena ayaa horta ninka banaanka soo dhigay
haddii uu ka aamusi lahaa uusan ka warqabin marka ciidamada nisa ayaa galmudug ka hawlgala ciidamada nisa ee galmudug ka hawlgala ee galmudugta xataa ruuxeeda dhexdeeda dadka kala baxo ugaarsada wayna nimanka qaatay ma ahan galmudug wax dhakada laga saaro galmudug waa way kashiftay wayna xabtay way aad baad maasatay waxaa dhacday markii cabdullaahi yuusuf uu ahaa wasiirka baa xuseen cayid wuxuu ahaa arrimaha gudaha madaxweynaha arrimaha guduhu ka dhig intuu soo istaagay media wuxuu sheegay in hal baasaboor iyo hal wadan iyo hal dal aan qaadanay macnaha waxa weeyaan sheekadii siday usoo socotay waagi hore waa nin waalan baa lahaye sheekadii inay soo cadaatay oo soo baxday baa la arkay hadda ninka jooga galmudug ee wasiirka la yihahdo taqdhule hadduusan ka hadli lahayn arrintan cabdikariin xataa in la xiray iyo in la qabtay lama ogaadin way daawada xiga ayaan fursadda siinay halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله صوت برنامج سماع. والله صوت أول البرنامج كلمة البرنامج راهو وعمر أيوة عبدالرزيق على شعاع ولا أرنتنا أيضا مركو أول سبحانه وتعالى إن الشعب الصومالي جبهانتي سموغة تحسينيه فعل كنفاش حون دعي إنا لله وإنا إليه راجعون دولته إن كجبته أما يكدوا ما ليست معها ولا وين المسؤولية قاعدة معمول ما وصل دوفين أربعة مقدسة يا لقدو فيه مؤذن كسرقال كصوماليات أها اللي تلكيس الدفاع يسقط دعوامه مركز الدولة دين أولى اسم معموله أما قبيله أو تلكي صوماليات دبوا عليه سواح لقى صوت لي ولا يقرب بديه دولة دو شعب كذا ارتباطه حتى على رنتها نوشكته كذا وحود عين لكن أسلونك أو عمسنتاي أو بروباغاندا أي هوست كفيدينيسا يا إسكودير يا كلا قيبين إذا واحد لقى سوق بدي ولده وحيا الله دورتي قبيل لقوم الدور اللي العقد منا بدني النمو يا شرفتي يا كرامتي يا كرامتي يا قبكي صوماليات بسوع لنا تيبي كنت مطي كلية ودولة كلية وحلا ورن كرا وحي دورشة كوجسي كويستاكتي واي ان cabdirashiid aad baad mahadsantahay walaal in ay dawladdu mowqifkeeda cadayso ayuu cabdirashiid uu kaga dhawaajiyay ilaa iyo hadda ay ka aamusan tahay khadka telefoonka dabcan aad u badan yahay waan siin doonaa daawadayaasha waxaan yar jeclahay inaan yar dul istaago mawduucii ONLF iyo dawladda aan mowqifkeeda aniga kolley horta waxaan aaminsanahay ONLF inay tahay niman goobnimo doona oo xafiyo u dirira oo ilaa waqti badan ilaa waddanka maanta la sameeyay ilaa hadda soo dagaalamayaan u haystaa dawladda mowqifkeeda laakiin haddaan qiyaasno maanta maadaama la yidhi nin argagixisaa baa la soo qabtay ninku ONLF baa laleeyahay waa argagixisaana la yidhi aniga waxaan qabaa marka dawladdu in ay u aragto ONLF argagixiso maadaama ay dhiibtaan leedahay maadaama ay argagixisa ninkaan dalbaday argagixisana lagu dhiibay horta waa arrimahan arrimo sahlan ma aha waxyaalo badan oo aan ka shakisanahay jiro ruuxantii Soomaaliya waxaa la yidhahdaa waa inay soo laabataa iyadoo dhexdeeda nabad ah dawladaha dariskeedana nabad ah waa siyaasad fiican international community waxaa loo yaqaan ama bulshada caalamkana saasay naga rabtaa dhibaatooyin badanaa kamidis lagu haydaa kamidis waxaan ugu haydaa inaan ciidamadana dib u dhisi la'nahay oo maalin kastaba imtixaana lagu wado Ethiopia waan ognahay xasaasiyad taariikha naga dhexeeda marna soo ma rabto Soomaaliya oo xoogeedii dalka oo xoog dalka oo shacbiga Soomaaliyeed macnaha leeyahay maakino maxaa dhihi heesihii loo tiri jiray goortaan arkaba waa geediyo waa galab caro goclo roorey gobonnimadeeda geeshka haya macnahaasaan u dalaha macnaha gobonnimada Soomaaliya ciidan ku dhisan oo midnimada Soomaaliya ilaalinaya in loo soo celiyo dhibaa naga haysta ONLF taan socdaa marka ONLF waxaa la yidhaahdaa taariikh waxyaalo badan ay ka hadashaa haddii uu yimaado cadow dalka oo dhan qabsada oo dadka oo dhan aamusay ilaahay sunnadiisa waxaa ka mid ah in ay ka haraan inina ka harta oo resistance bilaw oo meel ilaahay ogyahay ka keena oo walaa dafcullahi naas ba'dhum bi ba'd la fasadat al-ard oo ina laf aniga xasan ahaan waxaan fahamsanahay halgankaas ay wadayso tuutaha u dhigin waa halgan taariikhi qof kasta Soomaaliya oo maqal hadii waa qabiil hebel iyo reer hebel waa waxna baabashay way istaageen way dagaalamayaan dhibaatooyin badan oo waxa ku socda
ayada nafskeeda ku socda in oo ilan gobolkii batrool iyo waxaa laga sheegay gas iyo waxbaa laga sheegay musuntahay mashaakilaadkaa kusii kordha qofka soomaaliga ah waa kusii kordhin waxaan rabaa marka inaan hal arrin soo qaado dawladdii hore oo xasan sheekh waxay tiri tuutaha a ku injiristeen iska dhiga ee soo raaca dadka baraaraha gal iyagoo la hadlaya ONLF ONLF la hadla waa taariikhda waa usoo damaanta ma xasan jigjigti xasan sheekh wuxuu u baaqay in ONLF ay iska dhigaan tuutaha ay ku injiristeen kan das oo isticmaali aan waa xasan madaxweynaheedii ka been sheegmayo dawladdaana waxaa caddaatay inay ONLF dhiibayso waxaan jeclahay muqdisho ayaa laynaga soocayaa saraakiil sare ayaa khadka telefoonka ku jira xasan waan kusoo noqonay halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum halo way cilad farsamada malinaya marka macnaha ONLF soomaaliya hadaan wax badan naga soo hadlaanay dhibaatooyin badan isu geysanay mashaakilaad badan isu geysanay gobonimada anaga dhulka dhignay adigu anaga beeraha uga dhignay ONLF waxay kamid tahay tiirarka loo baahan yahay inaan ku tashano oo aan empowerment ku sameyn hadaan waxyaalo badan aan dib u nooleynayno maanta ay caddaatay haddii naga qarsoonay waxaan ogahay labadii dawladeed oo tii hore lagu eedeeyey inay jigjiga inta tagtay erya taariikhda bixiyay iyo midaan oo hadda aan sugayna inay haybadii Soomaaliya taas ay opposite-keeda noqoto ama ficilkeeda dawladda sameeyay wax ka fiican sameeyo ninkan Cabdikariim Sheekh Muuse ay bixiday macnaheedu waxa way runtii dhibaatada noo muuqata intay la eg tahay ma ogin sababta aan leeyahay dawladdan jilaafa loo dhigay ku dhacday sharqool way en axmed adooga raalli waxaan jeclahay khadka telefoonkana dabcan waa la soo gudbin doonaa saan filayo waxaan ognahay hadda guud ahaan Soomaaliya meel kasta ay joogto dareenkooda inay muujiyeen nooc doonaba ha noqdo hadday barnaamijyo noqoto iyo hadday baraha bulshada oo dareenkooda ay ku cabireen ha noqotaba wadamada dariska gaar ahaan Ethiopia runtii ma moogana isbedelada guud ee Soomaaliya ka socda hadday noqon lahayd tan hadda taagan iyo hadday noqon lahayd isbedeladii horeba oo inta badan la yiraahdo saameyn togan iyo mid taban intaba way ku leedahay sawirka Ethiopia maanta dhaqdhaqaaqa iyo isbedelkan guud ee jira uga soo baxaya bulshooyinka Soomaaliyeed wuxuu yahay waxaa uga soo baxaya horta waxa weeyaan horta walaalkay aad baan ugu raacsanahay run ahaantii si uga soo sheekeeyay nimanka la yidhaahdo ONLF sida Soomaalidu ay ka aaminsan tahay anigu aad baan ugu taageersanahay inay tahay jiid keliya Soomaaliyeed oo meel taagan inay yihiin laakiin garab waaye oo dhibaato ay haysato kasoo tag Ethiopia nimanka la yidhaahdo Soomaaliya meeshii ugu fiicnayd bay ka joogaan waxa weeyaan maandhaweed waxaa halahayay nin xildhibaan ah oo la yidhaahdo Sakariye wuxuu ka soo sheekeeyey jamhadkii waddanka qabsanayay wuxuu yidhi ma garan kartaan hal magac oo Soomaaliya oo jamhadkaasi leeyihiin saddexda xaraf ee Soomaalida lagu sheego midna ma garanaysa wax Soomaaliya wiilka qoriga sita oo dagaalamaya ma yaqaan buu SNF UNC SSDF SBL waa wada SK hal magac oo Soomaaliya lama arag biro waxna loo keenay waxa lagu bedelay waxa la yiraahdaa Puntland Somaliland Galmudug Jubbaland ma yaqaan qolo loo keentay ilaa hadda lama garanayo Soomaaliya way dhimatay waa la og yahay inay dhimatay oo dhulka taalo wax dhul dhintay oo dhulka yaalana aas bay u baahan yihiin nimankii aan rajada ka qabnay oo aan rabnay maanta inay soo celiyaan noogama muuqato rajo weyn haddaan ilaahay wax kale ku soo celin laakiin Ethiopia Soomaaliya haddaad raacdo oo maanta wax alla waxa Soomaali jooga aad dhiibto mana raalli ka noqon mayso waxa u wanaagsan halka awooda ay Soomaalidu leedahay waxay tahay haddaad dhimanayso mahaba jirta la yiraahdo haddaad dhimanayso dhareerka la iska duwa Soomaaliya maanta waxay u haboon inay ku dhimato gobonnimo iyo sharaf iyo wanaag inay ku dhimato Ethiopia dalka waa xalaaleysatay dhibitaanka maanta loo haysto dawladda dhexe oo leeyahay waxbay dhiibtay waxba ka horeeyay waxa ka horeeyay maamuladu inay dhiibi jireen وسوقنا معمول ذا ديب شيء معمول كل يدين شيء بدلان معمول كل واحد يدين شيء سوى لكن واحد هاي الضد كل وضع يقوم بالحراسي دولة ده واحد إيد وقاعدة مركا وضن كيو لأن دولة كان حيسة أي هيدو حتى أنا كيو هوستو تنين من التريو عيدا حالا كيو هوستو إن لقى قاتل لقى ديبتنا ما يسونوين أنا قال مدار مركا تاجنا إثيوبيا إن في الوسيلة وضن كل هذا مدار ما تسوي دين النما لكن waxaan isnahayn waa ka bixi doonta laakiin maanta waxaan noo waqti way in aad ma satahay daawadaha ugu dambeeya ayaa siinaya khadka telefoonka hadii uu ku jiro halo assalaamu calaykum
alo calaykum asalaam waraxma wala soo dhawaada magaca ku bilaabaya waa magacayga cabdicasiis ibrahim balbaa waxaan jooga gobolka boqol cabdicasiis halkee joogtaa gobolka boqol magaalada aad baad mahadsantay waa yahay walaal gudagal barnaamijka aad baana kaaga mahad celinaya iyadoo xilli dambe ay tahay inaad nagala qayb qaato waa sax aad baan u dhowahay waan ka qayb qaadanaya barnaamijka waan la socday barnaamijkana mataqaana fikirka ku saabsan cabdikariin sheekh muuse haddii aan ka bixiyo anu astaayada ka qabo aad iyo aad waxa weeye nin u dhashay anigu waxaan u aqaanay mataqaanay dowladyaasha soomaalida etoobiya degmada wardheer kuna mataqaanay caqabad nabadgelyada iyo mataqaanaa horumarka ummadda shacabka soomaalida deegaanka soomaalida etoobiya u dhalatay ahay caqabad waa gartay markaana waxaan mataqaanay qabaano fikir ah inay ummadda soomaaliyeed maslaxadooda laga taliyo laakiin fikirka cabdikariin sheekh muuse inay isaga haraan xildhibaanada iyo mataqaanay siyaasiyiinta soomaalida kale way wal adiga raalliya mawqifka aad ka aaminsan tahay arrinkan cabdikariin sheekh muuse muxuu yahay cabdikariin sheekh muuse anu fikirkan ka aaminsanahay waxa weeye mataqaanay in uu yahay mataqaanaa xubin nabadiid ku ah nabadiid ahaa oo caqabada iyo nabadgelyada horumarka deegaanka soomaalida etoobiya kasoo horjeeda oo ah mataqaanaa urur argixisa terrorismka caalamka ka mid ah cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax aad iyo markaa fikirkaa waxaad leedahay waa nin argagixisu ahaa nin mataqaanaa nabadiid ah argagixisa ah mataqaanaa taageerana siiya mataqaanaa nabadiidyada al-shabaab iyo mataqaanaa ayuu kamid ahaa way haddii aad arkayso in badan oo bulshooyinka soomaaliyeed ay arrinkaasi aad uga xun yihiin adiguna dabcan aad fikirkaa qabto maxaad is leedahay wax cadaymaa ama hadiiba ay noqoto in war intaa ka baxsan maxaad ku caddayn kartaa inuu yahay argixiso sidaa la sheegay inuu waddankiisa u dagaalamo ayaa muuqata maxaad adigu markaa kaga duwan tahay si kale haddaan dhigo waxa aan mataqaanaa ku caddayn karaa waxa weeye cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax waxa u dhashay horta mataqaanaa waa deegaanka soomaalida etoobiya waa gartay ummadoodii mataqaanaa waxaa suuqay gaar ahaan dadkii uu ka dhashay ismaaciil gomacadla ahaa mataqaanaa cid kale maaha ee wardheer degan hadda gurigooda wardheer buu ku yaallaa ilaa hadda ummadii mataqaanaa uu ka dhashay ismaaciil gomacadla ahayd ayuu laayay salaadiintii mataqaanaa uu kasoo jeeday isaga qabiil kasoo jeeda ka dhashay uu laayay mataqaanaa 17 wiil buu ku dhiglayay mataqaanaa degmada lehelow ee ku taala gobolka doolo ee deegaanka soomaalida etoobiya mataqaanaa ummadan mataqaanaa siyaasiyiinta hadda kula fadhidana waxaan ka codsanaya mataqaanaa ama aan lahayn in ay ka hadlaan maslaxadda ummadda soomaaliya inta ay ka hadlayaan mataqaanaa hal shakhsi oo mataqaanaa nabadiid ah argagixisa intay ka hadlayaan inay ka hadlaan maslaxadda ummadda soomaaliya waxaan jeclay su-aasha ugu dambeeya arrinkaaga inaan kaa weydiiye ay tahay mawqifkaga ku aadan ururka ONLF muxuu yahay adigoo ga raaliya ururka ONLF mataqaanaa ONLF horta mataqaanaa macnida rasmiga ah waxa weyn waa la yaqaan laakiin ubba jirta dee ONLF waxa dhaha ma jirto ONLF waxa dhaha ma jirto waa ubbana waa nabadiid waa argagixiso waxaan ka codsanayaa siyaasiyiinta kula fadhida mataqaanaa hadda adiga dooda u hayso in ay ka hadlaan maslaxadda ummadda soomaaliyeed shabaab inta kun eeleysay ruux inay ka mudaharaadaan oo ka hadlaan ayaa ka muhiimsan inay ka hadlaan cabdikariin sheekh muuse cabdikariin sheekh muuse dastuur iyo dawlad baa haysatay mataqaanaa ma aha cid cadow loo geliyey deegaanka mataqaanaa soomaalida etoobiya inuu joogo mataqaanaa mana magaca soomaaliyeedna iyana baasanay siyaasiyiinta kula fadhida waayahay walaal aad iyo aad baa kaaga mahad celinaya dabcan fikirkaaga aad soo gudbisay ee ah in ONLF aad ka aaminsan tahay inuu yahay urur argagixisa aad baa kaaga mahad celinaya way waxaynu ku jirnaa barnaamijka gabagabadiisii ninka odaygiina fikirkiisa dabcan waynu maqalay wuxuu kamid yahay dabcan dadka fikirkooga cabiraya maxaad ka odhan waxa weeyaan horta ninkaa fikirkiisa waan dhegeysanay laakiin ninku horta waayahan dambe ma og tahay af soomaali amxaaradii iyo ethoobiyankii kulli af soomaaligii la wada bartay geeska africa oo dhan anusa waa xili baan ku hadlaa ethoobiyaanka aan ku hadlaa waxaan rabaa warkayga ku gudbin karaa marka ninkan hadda waxaa laga yaabaa sida uu hadlaya asagu ethoobiyan soomaali bartay inuu yahay waa nin ethoobiyan ninka hadda warsatay maaha nin soomaaliya hadduu nin soomaali wardheer buu ku dhashay ma caddayn karo qabiil buu sheegay ninkan wardheer kuma dhalin xamar buu ku dhashay horta sideeda ku sheegaya qabaa'ilhaanta uu sheegayo dee qabaa'ilkiisu meel walba waa degan yaho waa run laakiin haddii nin wardheer ku dhashay annagu intaa soo kaxaysa ciidan kabanaan nin xamar ku dhashay oo militariya wey laakiin ninkan wuxuu ku hadlayaa waa afkii xabashida loo dhiibay nimankan marka af soomaaliga waa la wada baran karaa oo hadda hore ugu sii socon maayo anigu way waxaan jecel lahay maadaama barnaamijku uu kusaysan qayno xilligii gabagabada in ay way meesha waa media oo qof walba ra'yi uu dhiibanaya xaq buu leeyahay aaraa nala dhex gashanaya jirta oo qofka soomaaliga la tusayo macnaha streamka soomaaliga meesha u socda wax ka duwan inay jiraan qofka qaba oo iyo Bokolan jooga hadduu jirto ay run tahay waa reer Bokol ma ahe shacbiga Bokol degan ma aha iyo gobolka degan Soomaaliya ma aha qof sida waa kii qasad gaar ah leh
واي إنه نك أضيع سيد حراعي وحن جعلها موضوع قبل دي سنة كوشرنا استبدلنا ذا يضوفان تاسع وين نكور قبنا دولة أمسنا تيجي مركز هذين نكوعلنا وين نكور قبنا ما حلا نكور ري أنا حلك وهرمليان أماني واي حلك أنتان سومالي إني سنسبر كبيح واقعاني إن أنا قد نجين محلي هذا دولة قار كود ما أنت وكدومي لهاي أو أولها لي أو سيف عدو لسه هذه أنتان سوق لي دعوة بل كانوا حنا مرينا طلبات الميدي إنجليز كتاب مرينا قف أو حاله هل قف أو حاله لي أو الميرة أو أن مرحلة دي وحبر الشباب سيد أوجدا واي وزارة وحبر الشباب نقول عليه إنجليز كهذا ما حسوا قف على هاي أو ذلك كمل أو أنا أخبر شيء سيدا مثلا أساك مسؤول وزيك كمسؤول واي سيد واقعي كان صومالي أو هذه واحد لا يشوفه قف صومالي أو لقد بي مجال مقدس أو حمرة أو عنك صومالي ماشي ويليه أو دولتها سهينا لغو مسرحي هذه أنا واحد عن هذا كفيل نبكي ذي لا ده مركب أنا واحد قبل صومالي هذي لجدة ضبكي أنت سور ملقي هتقلقل إني دولة كريدو أنا أنقلقل نمدي دولة اللي قلنا يا أنسير رعنو أنا وطني أحين لكن واحد قبل أنسير عصنا دولة دوا إني سجس إنما حلال عليك أمير يا كوفرتها حلال عليك وإثيوبيا شحذ وناقشت سومالي وناقشت معنا لكن سومالي أنت كلا يكون صون نقطة صفقة أو حد حجامي دولة حجامي أو مدحوينها إبراهيم حجامي صفقاس وحربا إن دبلوغون نقضوا إنه سو أو يهي هذا ترو مدة أو رمها صفقة سفر كسر الغولة جرو جديد كسر الغولة جرو جديد مركات كل جرتو حجاميتها لا خلاص على مدة بس ده بمخلص على أنا هذا كي وصل. واي أبا ما استطيع هذا كوجود ما يأسيو أن كورنيل أحمد ومرسم حاشي. واضح أو يعني مرات كيسدو شيء قلت وارن أن مثل بقصة وقعتي الويل وإسكول وداعي أن وساردي بدونتي دولة المدمن ونوشة ولكن وساردي اللي وحيل كلا وحيل كلا قاري هذا واحد ربع وساردي الدمي الحين بدولة الغربة ما هو دولة هنقدر تمام وساردي الدمي الحين بدولة الغربة وهي الدم بيجان تطبع مكور قبيمه وروحه كبر الرجل وعرقين عضها أنا ما نقبل وليبا ساسو عيتها إن كسولي هذا صحيحة وقدام بهي مدحوينها عليه إن كسولي أنا ما قبل حوش ثاني حول حتى مدحوينها قارتي إن تاي حتى ما قبل صوته حويان نيكي ولا وريتشي بقالي ولا نحمش عادي سبقنا مدحوينها وحوش وقال نيكي يدير الحلو جدها لو حلو وحل الحلو والله أورانها لكن نين لو ويدا شيء أي رابور واي أن وقتك عادي إن حلالي أبا نذكر دارنا يا هل كلمة أو إلا هو بيلو بهاي من كان مركي لقى سوق هذا قلمدو أو حمر لكانه ديار حمر كقادمة توسي إثيوبيا وجيدي مثلا قبل كريسي مريضي هذي قبل كريسي مريضي أو شيء ذاك قار شيء جاي ينصر حسن وقتك إن حلالي موضوعنا طبعا أدب سيدراني أدي طبعا إني كعذر دارنا دعوة البرنامج كي أنه كل هذا نيجي نقول أهم بأرنتا عبد الكريم الشيخ موسى أو كم قاعد يرى قلب نجح أو لا يحدث هذا الشيء وجرا إذا مضى يتوب daruurku curatay weeye dhanna ha ka aadin weeye dhul dheer ha u dhoofin weeye voice beauty adeeg walba jimle iyo tafaariikh shay walba oo dunida yaala waa goob aad ka helayso ku darso dal dhaweeye weeye lagaaga furay xaruntiisa Scandinavianka ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden iyadoo waqti ka lumin dalabkaaga sheego shay walba oo aad calmato adduunka hortaada ka day nuurka guriga iyo farxadda reerku waa force beauty maalinta soo booqato badankeeda alaabta taaliyo calashaan inna isaga sheegin dadweynaha waxa ugu bishaareynayna inay ku soo dhawaadaan dukaanka waa dukaan cusub oo runtii ku soo siyaadiyay magaalada adeegyo fara badan oo ay ka mid yihiin qalabka guryaha lagu qurxinayay
qalabkii guryaha lagu gogolanayay sida roogayaashii bustayaashii iyo noocyo kala duwan dharkii dumarka baan haynaa iyagana oo noocyo kala duwan leh cosmeticgii baan haynaa dhammaantiis barfuun kareeno noocyo kala duwan dadweynaha waxaan leenahay insha allah waxaan rajaynaynaa inaad noogu timaadaan adeegyo idin qanciya waxaan aad ugu faraxsannahay ka qayb qaadashada xafladan maanta lagu furayo dukaanka Force Beauty intaad ku sugan tahay dukaanka waxaa sidoo kale aad ka heli kartaa adeega lacag dirista waxaana ku diyaaraa Amal Express dukaanku waxa uu xarumo ku leeyahay magaalooyinka Dubai, Ohio, Nairobi iyo waliba Gothenburg haddaba noqo qofka ugu horeeya ee adeega dalabka nasiib u yeesha dhammaan dadka Soomaalida ee ku nool wadankan Ingiriiska iyo guud ahaan qaaradda Yurub waxaa lagu wargelinayaa in dukaanka Tawakkal Mini Market oo ku yaala xaafadda Edmonton ee waqooyiga magaalada London lagu keenay caanihii geela oo fresh ah dukaanka sidoo kale waxaad ka helaysaan oo la horumariyay culumta diiniga alaabooyinka khuseeya sida kutubada iyo cajaladaha muxaadarooyinka cunooyinka kala duwan cabitaanada sidoo kale dukaanka waxaad ka heli kartaa xawaaladaha kala duwan sida Ladan iyo Taaj waxa sidoo kale dukaanka gudihiisa aad ka heli kartaa dawaar ku tolaya dharka noocyadiisa kala duwan iyo waliba sida aad adigu dalbato alaabooyin kale ayaad ka heli kartaa oo aad mini marketka ugu iman kartaa haddii aad doonayso jumlo iyo tafaariiq intaba waxaa gudaha mini marketka aad ka heli kartaa Sahal Travel oo meel walba dunida aad ka joogto ku sameynaya in aad ka goosato tikidhada haddaba wixii talo iyo tafaasiil ah kala xiriir telefoonada Tawakkal Mini Market xarunta dawooyinka dabiiciga My Natural Healing ma ogtahay in xarunta My Natural Healing waa xarun caafimaad oo ku taala magaalada London gaar ahaan xaafadda Seven Sisters aad ka heli karto dhammaan noocyada dawooyinka dabiiciga ee natural medicine kuwada aad kugu wanaagsan carruurta dadka waayeelada dumarka iyo ragga intuba kuwaas oo lagu farsameeyo dalalka Britain iyo Jarmalka xarunta oo ka howlgalo qabiil Soomaaliyeed oo ku takhasustay dawooyinka dabiiciga iyo talabixinta caafimaadka iyo adeegyada aad ka heli karto waxaa ka mid ah dawooyin khaas oo hormoonaadka ragga iyo dumarka oo kor u qaada hamada iyo haddii dhibaato ka haysato dhanka ragnimada iyo sidoo kale dhalmada haddii alla ku siinayo iyo kuwo khaas oo dumarka oo hooyada u sahlaya inay ilmo dhasho daawooyinkan oo dhan oo qaarna gaar u ah ragga qaarna dumarka gaar u ah waxa ay qayb ka qaadanayaan sidii ay ugu fududaan lahayd qoyska in haddii ilaahay u qadaro ay maaragtay ilmo ay dhalaan waxyaabaha kale aan hayno waxaa ka mid ah daawooyin la xiriira xagga maskaxda iyo brainka dadka waxaa dhici karta dhibaato inay ka haysato xagga xusuusta iyo xifdiga hadday dhalinyaro yihiin iyo hadday waayeel yihiin waxyaabaha kale oo My Natural Healing ay diyaar ilan tahay waxaa ka mid ah toobin waxaan sameynaa toobinkaasna waxaa sameeya dad professional ee yaqaan ama bartay oo ku takhasusay sida loo toobo toobinkaas hadduu yahay ragga waan toobnaa oo waan maaragtay waa suurtagal inay helaan toobin sidoo kale dumarkana waa la toobaa oo gabdha iyaguna ku takhasusay toobinka ayaa tooba maalmo gaara ayayna leeyihiin xarunta aad ka heli karto dawooyinkan iyo kuwo kale oo la xiriira xanuumaadka ku dhaca laalaabyada gaar ahaan lugu xanuunka gacmo xanuunka jilbo xanuunka iyo dhammaan laabatada iyo sidoo kale waxaad ka heli kartaa dawooyin kale oo ka caawinaya neerfayaasha indhaha ee aragga keena iyo dhibaatooyinka kale ee la xiriira aragga iyadoo xarunta yeelaan qalab casri ah kuwii ugu dambeeyay oo loogu talagalay in lagu ogaado dhammaan xanuunaadkaasi xarunta qalabka yaala waxaa ka mid ah aerodology oo ah iskaan lagu ogaado dhammaan xanuunaadka ku dhaca neerfayaasha qofka Quest 4 ayaa sidoo kale ka mid ah qalabka iskaanada ee xarunta yaala kaasoo lagu ogaado xanuunaadka ku dhaca qaab dhismeedka jirka wuxuu iskaan gareeyaa qaab dhismeedyada oo soo saaro wixii cillad ah oo qofku uu qabo dhammaan dawooyinkan iyo kuwo kale oo waxyeelo u geysan qofka bini'aadamka waxa uu hagaagi kartaa xarunta My Natural Healing oo uu diyaar kugu yahay MD Maxamed Yaasiin Afcad wixii intaa dheer kala xiriir adreeska iyo telefoonka hortiina ka muuqda maalintii alla keenaba marxalad bay wadataaye maantana waxaan idin sidaa maalin oil
saliidda maalin oil waa saliid dabiici ah oo laga sameeyey dhirta waxaana tijaabo la sameeyey lagu ogaaday in wax badan ay ka tarto dadka timo la-aanta ku dhacday ee bidaartu ay gashay waxay korisaa oo nafaqaysaa timaha waxay ka hortagtaa oo wax badan ay ka qabataa timaha ragga iyo dumarka ee jajabka ku yimaada saliidda maalin oil oo ah saliid dabiici ah maalin oil sida aad masuurkaba ka arkayso waxaan isticmaalayay muddo 4 toddobaad haye waxaan sameeyey markaan soo qabsaday waxaan sameeyay timahan xiiray haye inta markaan xiiray subaxii iyo habeenkii aan mariyaa muddo 4 toddobaad oo ay maanta ku eg tahay waad arkaysaa natiijada in isbedel weyn oo ka gedisan kii hore saliidda maalin oil oo ah saliid dunidu ku cusub ayaa haatan la arkay waxtarka ay u leedahay timaha ee qofkii timihiisu murug ku hayso la xiriir maalin oil halkaas uu diyaar kugu yahay maamulaha maalin oil Bashiir Yusuf ama kala xiriir wixii inta dheer adreeska iyo telefonka hortiina ka muuqda ma jeceshahay inaad yeelato xirfad kombiyuutereed si degdeg ah mise u baahan tahay inaad noqoto computer technician haddaba haddii ay jawaabtaadu tahay haa waxaa ku diyaar ah dugsiga tababarka kombiyuutarada Maltech Training Center oo ka haqabtiri doona barashada cilmiga kombiyuutarada koorsooyinka uu dugsiga bixiyana waxaa ka mid A+ certification Network Plus certification Windows 10 2016 Server Microsoft Hyper-V VMware iyo koorsooyinka sida CCNA iyo CCNB Routing Switching CCNA CCNB Voice CCNA CCNB Security CCNA CCNB Wireless iyo koorsooyin kale oo fara badan waxay koorsooyinka ku habboon yihiin qof kasta oo jecel inuu yeesho mahnad uu ku shaqaysto xagga kombiyuutarada iskiis ama inuu u shaqeeyo kambaniyada waaweyn muhiim maahan inaad aqoon kombiyuutar horay u lahayd amaba aad taqaan luqadda Englishka waxay dhammaan koorsooyinka ku baxayaan afka Soomaaliga dugsiga sidoo kale wuxuu macaamiil fiican la leeyahay qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada London wuxuuna diyaar u yahay inuu ka caawiyo ardaydiisa inay u gudbaan jaamacadaha haddii ay daneynayaan dhammaan ardayda daneynaysa ama jecel inay bartaan kombiyuutarka waxaa lagu wargelinayaa inay la soo xiriiraan dugsiga isqoristu waa ay socotaayee horay u gaar hamigeenu waa horumarkaaga خانة خزانة انترناشنال ريستورانت ومقايد عالمية وسميسا إن كبضن بقولية تضباط عنوين إيام معمعان كلا دونا وحانا كو ديارين عنتدي ذا شقالة وطوبران كوا سولغاقا كيني ودن كاسي إنديا خانة خزانة وحي كو ديارين إيسا عنوين كدادك قبا معانك ليكارك كالسترول كي وحي لمده وحانا سيدو كلا يكو ديارين إيسا دلباديد حفلدها أروسكا شرارك مهم كي وحي لمده تاسو اللغوكو كيني قوبت هذا هدي أدونتنا إن الحفلة كو قبسة مقايد gudaheeda waxay ku diyaarisay hool qaadaya 1000 qofood hotel sayid waa hotel leh jiif caalami ah biyo macaan oo la nadiifiyay iyo sidoo kale shaawar aad ka dhigan karto qabow iyo kuleel hadba kii aad doonto halkan waxa weeye hotel sayid khana qasana qayb cusub oo lagu soo kordhiyay oo beerka waa meel awoodeedu furan tahay oo maaragtay aad awood u fiican tahay qof qabow uu dareemayo sidoo kale indhahana u fiican oo cagaar ah oo geeda leh oo wanaagsan waxa kale oo ay jirta meel ilmuhu ku ciyaaraan oo loogu talagalay dadka macaamiisha oo meeshaan imaanaya ilmuhoodu meel ay ku wiifo iyo playground iyo meel ay ilmuhu ku ciyaaraan baan u sameynay oo ilmuhu ay ayaguna ka heli doonaan marka waxaan rajaynaynaa in customerkeena iyo kuwa cusub inta wayna ka heli doonaan ka faa'iideysan doonaan sidoo kale sayidka hotel anqana khazana waxaa lagu soo kordhiyay qaybta fisiotherabiya jimicsiga iyo jirdhiska haddaba makhaayadda khana khazara restaurant iyo hotelka sayid waxay ku yaalaan taalada sayidka waxayna ka soo horjeedaan xarunta oto wixii faahfaahininta dheerna kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda hotel sayid an khana khazana international restaurant sida dhoolka hilaaca ama dhaysta daruurta dhaxyareydhayahaygu haddii maalmuhu ugu dheeraadeen oo aad gurbo ku raagtay ama naftaadu damacday tamashile bilicdii dalkii hooye inaad baryo dalxiis u baxdo tigid lahuba hawshiisa anigaa kaa xaqiijiyo waa number 1 goobta aad ka helayso waa amiin capital barbarkaaga ka day haddii diyaaradii dibato maalmo dib u dhacdo ama dalxiisku kula durko bariyo jamasho ku raagto waxaa kaa xiga maalmo kororsi hallow shaqaalo u helan iyo balanteenu waa amiin capital bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa bili iile maamulaha shirkadda amiin capital ee Sweden iyo shirkadda la shaqeysa wada shaqeeyaan shirkadda Juba Express ee caalamka oo dhan joogta waxaan rabnaa macaamiisheena sharafta leh
inaan ku wargelino inaan hayno tigidho jaban oo adduunyada dhan ah meeshii la rabana loogu duuli karo caawinaynana dhib kastoo ku yimaada macaamiisha shirkadaas. tigidhadu waa tigidho raqiisa caalamka oo dhan ah, dalkii hooyo u badan ama afrikada kale. waxaan rabnaa macaamiisha inaan ku wargelino in tigidhadii hadda loogu talagalay bishii December ama January sanadka cusub inay goor bilaabanayaan iyaga raqiisa. waxaan kaloo ku wargelinaynaa inaan u hayno macaamiishii Suudan degan, qofkii doonaya inuu jack sarafto, qofkii doonaya inuu regni bixiyo, qofkii doonaya inuu deyn ku qaato tikidkiisa intaba. ha mooganaanin ballanteenu waa xarunta Amiin Capital oo ku taala caasimadda Sweden gaar ahaan xaafadda Soomaalidu ay degto ee Rinkeby. farxanow maalmahan bariis afka maan gelin ee ma ii sheegi kartaa basmati bariisa alle leeyahaa alfanaar basmati bariis la dhaho oo dhadhan wanaagsan ayaa haysta suuqa ee kaalay aan ku geeyo maqaayadda balakeen aan soo cunee bariiska alfanaar. هذا الطعم الذي كنت ما شاء الله ما شاء الله هذا يا وهرنا الفنار بريسكا تيديسا يددنكيسا هذا يا وهرنا always الفنار وايك waxaan rabaa bariiska walaal ma eegi karaa qaabka u yimaada iyo kiiska uu ku yimaada iyo كيش والله يا ولد واكنا بريسكان والله ميجيس الفنار ما شاء الله وقت صدق الكفر alfanaar hamoogaan waxaad ka heli kartaa xurumaha Tawakal Foods ama dhammaan dukaamada Soomaalida ee ku yaala waddankan Ingiriiska, Kenya, Yurubta, Soomaaliya iyo waliba Uganda. wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir telefoonada shaashada ku qoran. ballanteenu waa alfanaar basmati bariiska loo bogay ee alfanaar basmati bariis weeye beela alfanaar. daruur kuu curatay weeye dhanna ha ka aadin weeye dhul dheer ha u dhoofin weeye Foyos Beauty. adeeg walba jimle iyo tafaariiq shay walba oo dunida yaala waa goob aad ka helayso ku darso dal dhaweeye weeye lagaaga furay xaruntiisa Scandinavianka ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. iyadoo waqti ka lumin dalabkaaga sheego shay walba oo aad calmato adduunka hortaada ka day. nuurka guriga iyo farxadda reerku waa Foyos Beauty. maalintaas soo booqato badankeeda alaabta taaliyo calashaan cidna isaga sheegin. dadweynaha waxaa ugu bishaareynayna inay kusoo dhawaadaan dukaanka. waa dukaan cusub oo runtii kusoo siyaadaya magaalada adeegyo fara badan oo ay ka mid yihiin qalabka guryaha lagu qurxinayay, qalabkii guryaha lagu gogolanayay sida roogayaashii, bustayaashii iyo noocyo kala duwan. dharkii dumarka baan haynaa iyagana oo noocyo kala duwan leh. cosmetic baan haynaa dhammaantiis barfuun, kareeno, noocyo kala duwan. dadweynaha waxaan leenahay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay noogu timaadaan adeegyo idan qanciya. waxaan aad ugu faraxsanahay ka qayb qaadashada xafladan maanta lagu furayo dukaanka Foyos Beauty. intaad ku sugan tahay dukaanka waxaa sidoo kale aad ka heli kartaa adeegga lacag dirista waxaana ku diyaaraa Amal Express. dukaanku waxa uu xarumo ku leeyahay magaalooyinka Dubai, Ohio, Nairobi iyo waliba Gothenburg. haddaba noqo qofka ugu horeeya ee adeegga dalabka nasiib u yeesha. dhammaan dadka Soomaalida ee ku nool waddankan Ingiriiska iyo guud ahaan qaaradda Yurub waxaa lagu wargelinayaa in dukaanka Tawakal Mini Market oo ku yaala xaafadda Edmonton ee waqooyiga magaalada London lagu keenay caanihii geela oo fresh ah. dukaanka sidoo kale waxaad ka helaysaan oo la horumariyay culumta diiniga, alaabooyinka khuseeya sida kutubada iyo cajaladaha muxaadarooyinka, cunooyinka kala duwan, cabitaanada. sidoo kale dukaanka waxaad ka heli kartaa xawaaladaha kala duwan sida Ladan iyo Taaj. waxaa sidoo kale dukaanka gudihiisa aad ka heli kartaa dawaar ku tolaya dharka noocyadiisa kala duwan iyo waliba sida aad adigu dalbato alaabooyin kale ayaad ka heli kartaa oo aad mini marketka ugu iman kartaa haddii aad doonayso jumlo iyo tafaariiq intaba. waxaa gudaha mini marketka aad ka heli kartaa Sahal Travel oo meel walba dunida aad ka joogto kuu samaynaya in aad ka goosato tikidhada. haddaba wixii talo iyo tafaasiil ah kala xiriir telefoonada Tawakal Mini Market. xarunta dawooyinka dabiiciga
My Natural Healing. ma ogtahay in xarunta My Natural Healing oo xarun caafimaad oo ku taala magaalada London gaar ahaan xaafadda Seven Sisters aad ka heli karto dhammaan noocyada dawooyinka dabiiciga ee natural medicine kuwooda aad kugu wanaagsan carruurta dadka waayeelada dumarka iyo ragga intuba kuwaas oo lagu farsameeyo daawalka Britain iyo Jarmalka xarunta oo ka howlgalo qabiil Soomaaliyeed oo ku takhasustay dawooyinka dabiiciga iyo talabixinta caafimaadka iyo adeegyada aad ka heli karto waxaa ka mid ah dawooyin khaas u ah hormoonaadka ragga iyo dumarka oo kor u qaada hamada iyo haddii dhibaato ka haysato dhanka ragnimada iyo sidoo kale dhalmada haddii alla ku siinayo iyo kuwo khaas u ah dumarka oo hooyada u sahlaya inay ilmo dhasho daawooyinkan oo dhan oo qaarna gaar u ah ragga qaarna dumarka gaar u ah waxa ay qayb ka qaadanayaan sidii ay ugu fududaan lahayd qoyska in haddii ilaahay u qadaro ay maaragtay ilmo ay dhalaan waxyaabaha kale aan hayno waxaa ka mid ah daawooyin la xiriira xagga maskaxda iyo bareenka dadka waxaa dhici karta dhibaato inay ka haysato xagga xusuusta iyo xifdiga hadday dhalinyaro yihiin iyo hadday waayeel yihiin waxyaabaha kale oo My Natural Healing ay diyaar ilan tahay waxaa ka mid ah toobin waxaan sameynaa toobinkaasna waxaa sameeya dad professional ee yaqaan ama bartay oo ku takhasusay sida loo toobo toobinkaas hadduu yahay ragga waan toobnaa oo waan maaragtay waa suurtagal inay helaan toobin sidoo kale dumarkana waa la toobaa oo gabdha iyaguna ku takhasusay toobinka ayaa tooba maalmo gaara ayayna leeyihiin xarunta aad ka heli karto dawooyinkan iyo kuwo kale oo la xiriira xanuumaadka ku dhaca laalaabyada gaar ahaan lugu xanuunka gacmo xanuunka jilba xanuunka iyo dhammaan laabatada iyo sidoo kale waxaad ka heli kartaa dawooyin kale oo ka caawinaya neerfayaasha indhaha ee aragga keena iyo dhibaatooyinka kale ee la xiriira aragga iyadoo xarunta yeelaan qalab casri ah kuwii ugu dambeeyay oo lagu talagalay in lagu ogaado dhammaan xanuunaadkaasi xarunta qalabka yaala waxaa ka mid ah aerodology oo ah iskaan lagu ogaado dhammaan xanuunaadka ku dhaca neerfayaasha qofka Quest 4 ayaa sidoo kale ka mid ah qalabka iskaanada ee xarunta yaala kaasoo lagu ogaado xanuunaadka ku dhaca qaab dhismeedka jirka wuxuu iskaan gareeyaa qaab dhismeedyada oo soo saaro wixii cilad ah oo qofku uu qabo dhammaan dawooyinkan iyo kuwo kale oo waxyeelo u geysan qofka bini'aadamka waxa uu hagaagi kartaa xarunta My Natural Healing oo uu diyaar kugu yahay ND Maxamed Yaasiin Afcad wixii intaa dheer kala xiriir adreeska iyo telefoonka hortiina ka muuqda ka sabaan hodheelkeenu sugayna in